Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qiimiga badan meel walba waa joogtaa waa salaamantihiin waa walaalkiin injineer kaafi cabdullaahi kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo articleska uu leeyahay afka Isbaanishka. Articleska uu leeyahay afka Isbaanishka waxaa loo qeybiyaa laba qeybood, waxaana loo yaqaanaa definidos iyo indefinidos. Definidos waxaa soo hoos gasho afar, kuwaas oo kala ah el oo iskale masculino oo singular ah, iyo los oo iskale masculino oo plural ah, la oo iskale feminino oo singular ah, iyo las oo iskale feminino oo plural ah. Indefinidos ayadana waxaa soo hoos gasho afar, kuwaas oo kala ah un oo iskale masculino oo singular ah, iyo unos oo iskale masculino oo plural ah, iyo una oo iskale feminino oo singular ah, iyo unas oo iskale feminino oo plural ah. Intaas markay tahay definidos iyo indefinidos markii loo fiiriyo afafka qalaad sida afka Ingiriisiga oo kaleeto iyo af Soomaaliga waxay u taagan yihiin. Af Ingiriiska waxay u taagan yahay definidos kuwa ah sida el, los, la iyo las waxay u taagan yihiin hal erey ama hal articles oo Ingiriiska ah kaasoo ah the ama de. Sidoo kaleeto indefinidos articleska sida un, unos, una iyo unas waxay u taagan yihiin articleska afka Ingiriiska uu leeyahay oo kaasoo ah a, an iyo some. Haddaba Soomaaliga waxaan ku dabaqna marka. Waxaan tusaalaha u horeeya kasoo qaadanaynaa guri. Guri waxaa lagu dhahaa afka Isbaanishka casa ayaa lagu yiraahdaa. Marka waxaan u kala qaadaynaa labadooda tusaale ayaan kusoo kala qaadan doonaa si aad u fahantid. Kan ugu horeeya soo qaadanaya waxaa waa definidos. Markaan ku dabaqno casa waxaa waaye waa feminino waana singular, ma ahan casas jamac ma ahan waa hal ama waa mufrad. Okay, oo ku dabaqaynaa marka kulama oo feminino uu yahay uuna singular uu yahay wuxuu qaadanayaa la ayuu qaadanayaa. Waxaan leenahay la casa. Micnaheedu marka waxay noqonaysaa guriga. El chico wiilka. Chico waa wiil, wiilkan wuxuu qaadanayaa masculino, wiilka waa mufrad ama waa keligaasna wuxuu qaadanayaa el. Saas u qaadatay isha oo waxaa leeyahay el chico. Dhinaca kale haddaan fiirino chica waa gabadha. Markii loo fiiriyo definidos la ayay qaadanaysaa sababtoo ah waxaa waaye waa feminino oo singular ah. Waxaa leedahay la chica gabadha, el chico wiilka, la chica gabadha, la casa guriga. Soo ma jeedid? Ay coche, el coche gaariga. Dhammaan waxaa u dambeyso ga, ka, ta wax saasa u dambeyso ma garatid. Marka u imaano indefinidos waxaan nahnay waxay u taagan yihiin articleska a iyo an iyo waxay u taagan yihiin some. Ayaga waxaa laga hadlaa si guud, definidosna waxaa laga hadlaa si gaar ah waxaad taqaanid ama qofka la hadlaysid ama wax u tilmaamaysid wuxuu kula yaqaano. Halka indefinidos laga hadlayo si guud ama wax guud la tilmaamayo. Tusaalaan usoo qaadanaynaa sida kuwii hore oo kaleeto kasoo qaad casa marka ku dabaqno casa waxaan dhahnay waa feminino waana singular. Muxuu qaadanayaa marka? Wuxuu qaadanayaa una ayuu qaadanayaa oo waxay noqonaysaa una casa guri. Jamac markaa ka dhigno waxay noqonaysaa unas casas guryo. Guryo. Kii hore wuxuu ahaa guriga. Si guud ayaa lagu sheegay oo waxaa lagu dhahay guri. Gurigu yahay mataqaanid. Una casa guri. Star ayaa ku yaalo cerca de biblioteca meel u dhow ama agagaarkeeda ah biblioteca maxaa la library. Okay, kan kale soo qaadanayna waxay tahay el chico wiilka. Halkaan marka la joogo indefinidos wuxuu qaadanayaa un ayuu qaadanayaa oo waxay noqonaysaa un chico wiil. Okay, tusaalaha saddexaad aan soo qaadanayna waxay tahay waxaa ka soo qaadanaynaa chica oo gabadha ahayd. Waxay noqonaysaa una chica. Waxa waaye gabar ama gabadh saa u taqaanida. Marka tusaalooyinkaas marka waxay ku tusayaan isticmaalka ereyadaas. Kuwo badan ay jiro halkan kuma soo koobi karno. Saan sheegay definidosna waxaa loo adeegsadaa wax gaar ah ama wax qof isla taqaanaan ama wax aad taqaanid ama qofka kale yaqaan u tilmaamaysid.
halka indefinidos laga hadlayo wax si guud ah ama si jamca u tilmaamaysid waxaasoo aan la aqoonin ama ishaara ama wax aad ka bixinaysid. ولكن إنجينير كافي عبد الله ولا سيدنا سيدنا ودري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.